fulintu oo ah xubnahan hadda hareeraha iga taagan oo xogayaha guud madaxda u yahay ay soo qiimeeyaan warbixintii hadda layna siiyeyna ay tahay mid cadaalad ku soo baxday oo aan ahayn wax yacni xaglin iyo kala doorasho ayna ku jirin ee shaqadii la qabtay un caddaynaysa waxaan si gaara u leeyahay ka hadal male gabadhii hadda laynoo sheegay Sacdiya ee ka bilowday inay noqoto nadiifiye adeege iyada oo ka shaqaysa oo shaqadeeda gudanaysana waxbarasho bilowday ee maanta heer jaamacadeed joogta arrintii xogayaha guud hadda soo jeediyey ka hadal male waxa weeye sidaasaa loo qaadanayaa oo ah shaqadii ay haysay way ka dallacaysaa oo waxay gelaysaa shaqada ay mutaysatay intii kale ee la qiimeeyey hadda waxa weeye guddiga fulintu waa soo qiimeeyeen waxay muddo dheer kolkaas waa muddada ay qiimeeyeen oo ahayd sida ay u soo xuleen oo hadda qofkii ugu dambeeyey in shahaadada siiyey oo ah Muuse oo aynu dhammaanteen qirayno inuu yahay qofkii ugu hawlkarsanaa ee shaqadiisa si joogta ah oon lexleexad lahayn u qabtay go'aankiinana ay yahay ta lagu siiyey shahaadada lagu qiimeeyey aad idinku go'aamiseen waan ku faraxsanahay inaynu sidaasi isu wada qiimayno oo aynu qirno qofkeenna qiimaha inoo leh qofkeenna innaga hadda dalkeenna waxa ina dilay waa qabiil kaas qiimaynta maanta halkan ka muuqatay waa ka madax bannaan oo ah shaqadii aynu qabanaynay soomaalinimo iyo siduu qofkaasi dalkiisa wax ugu qabanayay inoo caddaynaysa khudbo dheer ma jeedinayo oo khudbo dheer baa laynoo jeediyey oo ah wax walba laynoo tafatiray waxaan leeyahay guulaysta hawsheennuna halkaa ay ka bilaabantay kor ha uga socoto iyayna hoos uga dhicin aad iyo aad baan idinkaga mahel celinayaa guud ahaantiin shaqaalaha aqalkan ka shaqeeya ama noqda guddiga fulinta ama noqda shaqaalaha caadiga ah ee shaqaynaya ee waxyahooda si fiican u gudanaya howlaha loo dirtay sidaasaynu ku socon doonaa haddii alla yidhaahdo inta inoo hartay mahadsanidin